kulan waxaan saaxiibayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka xilligan oo aad kala socotaan Cabaase Channel. qodobada ugu waaweynna waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee safarka Axmed Madoobe iyo Dani ee Muqdisho. Al-Shabaab oo Muqdisho ka daabulaya odayaasha soo xulaya ergooyinka iyadoo cabsi laga qabo in Al-Shabaab ay saameyn ku yeeshaan doorashada soo socota. qaraxyo khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Abu Dhabi xilli maanta magaaladaasi ay gaartay diyaaradii ugu horeysay oo toos uga timid Israa'iil. Qatar Airways oo duulimaadyo ka bilaabaysa Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha India oo cambaareen xooggan kala kulmay weerar dhanka afka ah oo ku qaaday Soomaaliya. iyo Mareykanka oo sheegay in 5.3 bilyan oo dollar ay uga baxday howlgalka uu ka wada Soomaaliya waxaana uu saluug ka muujinayaa natiijada howlgalkaasi. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow daawan doontaan. saaxiibada nagu cusub waxaan ka codsanaynaa in channelka ay ku soo biiraan. magaciigu waa Cabaase Xuseen Muuse. qodobka ugu horeeya haddii aanu faahfaahintiisa galno wararkii ugu dambeeyay ee safarka Axmed Madoobe iyo Dani ee Muqdisho ay ku imaanayaan. madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa kusoo wajahan magaalada Muqdisho waxaana lagu soo waramayaa in maalinta berri ah oo Talaadada ah kuna beegan 1 September 2020 ay soo gaari doonaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in qabanqaabada socdaalka labada madaxweyne ay uga soo kicitimayaan Kismaayo iyo Garowe laga dareemayo magaalooyinkaas. sidoo kale wafdi hordhac u ah iyo ciidamo ilaalo u ah ayaa saacadihii la soo dhaafay soo gaaray magaalada Muqdisho kuwaas oo diyaarad qaas lagu keenay. Axmed Madoobe iyo Dani ayaa la filayay in maalinta Axadda ah ay yimaadaan magaalada Muqdisho balse arrimo farsamo awgeed ay dib ugu dhaceen waxaana si rasmi ah u imaan doonaan maalinta berri ah oo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ay ka soo degan doonaan. hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa diiday ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb iyo natiijadii ka soo baxday waxaana wada hadallo ay la yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo wada hadalladaasna diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka iyo wada shaqeynta labadaas maamul iyo dowladda federaalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ayay xubnahaas is arki doonaan waxaana wada hadalladaas dowladda iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland gadaal ka riixaya beesha caalamka. labada madaxweyne ayaa degi doona madaxtooyada iyo agagaarkeeda. Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu dego madaxtooyada halka Danina uu degi doono guri gaar ah oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya. arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisada u dhaxaysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay cirka isku sii shareertay kadib markii shirkii Dhuusamareeb go'aanadii ka soo baxay aysan qayb ka noqon madaxweynayaashaasi. waxyaabaha kusoo kordha safarka labada madaxweyne ee Muqdisho ay ku imaanayaan iyo faahfaahinta la xiriirta shirkaasi halkan ayaad kala socon doontaan. markaana Imaaraadka qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada Abu Dhabi xilli maanta magaaladaasi ay ka degtay diyaaradii ugu horeysay oo si toos ah uga timid Israa'iil. hal qof ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday qaraxaasi ka dhacay baar laga cunteeyo oo ku yaala magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Imaaraadka Carabta. qaraxaasi ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay haanta gaaska cuntada lagu karsado waxaana qaraxaasi uu dhibaato gaarsiiyay dhismaha hoose ee 4 dabaq oo baarku uu ku yaalay. ciidamada dabdamiska ayaa sheegay inay ku guuleysteen daminta dab ka kacay qaraxaasi oo muddo 33 daqiiqo gudahood ay ku damiyeen sida saraakiisha laanta dabdamiska ee Imaaraadku ay sheegeen. ninka ku geeriyooday qaraxaasi waxaa la sheegay inuu ka soo jeedo dal ku yaala qaaradda Aasiya oo waxaana uu ku sugnaa gudaha maqaayada balse lama sheegin magaciisa iyo da'diisa. sidoo kalena faahfaahin dheeraad oo intaas ka baxsan lagama bixin. sidoo kale laamaha ammaanka ee Imaaraadka Carabtu ma aysan bixin faahfaahino intaas ka badan oo ku aadan qaraxaasi oo qaybo badan oo magaalada Abu Dhabi maanta laga maqlay. qaraxan waxa uu ku soo beegmayaa xilli diyaaradii ugu horeysay ee laga leeyahay Israa'iil maanta ay soo cagarigtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Abu Dhabi. jugta qaraxa oo ahayd mid xooggan ayaa si weyn looga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada. muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay xulac xoog leh oo ka kacay goobta qaraxa uu ka dhacay iyadoo uuradana markaa ay cirka isku sii sareertay. ma cadda waxa uu sida rasmiga ah qaraxan uga dhashay iyo khasaaraha guud uu geystay marka laga soo tago in burbur uu soo gaaray dhismihii maqaayada ahayd iyo in qof uu ku dhintay. magaalada Muqdisho aan dib ugu soo laabanay Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in magaalada Muqdisho ay ka daadgurayeen ergooyinkii soo xulay baarlamaanka iminka shaqeeya. taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka
cabdulaahi maxamed cali sambalolshe ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu ku sheegay in al-shabaab odayaashii soo xulay ergadii soo doonatay xildhibaanada haatan jooga ee baarlamaanka ay ka daadgureeyeen magaalada muqdisho. sambalolshe waxa uu si weyn uga soo horjeedaa madaxda talada haysa waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga nabadda iyo horumarka waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay sida uu hadalka u dhigay doorka kooxaha argagixisada ay ku yeelan karaan codeynta soo aadan. sidoo kale waxa uu si weyn uga soo horjeestay xanaanka deegaan doorashada waxaana uu aada uga baqayaa in xarakada al-shabaab oo xiriir la leh al-qaacida ay xubno ku yeeshaan baarlamaanka soo socda. sideedaba doorashada waxay ka dhici kartaa meel ay amisom joogto marka laga reebo deegaanada puntland iyo qeybo ka mid a galmudug. suuragal ma aha in gobol kasta ay 4 meelood ka joogto amisom. sidaad la socotaan al-shabaab ra'yi kama haysan doorashadii 2016 geedi socodkeeda iyo sida loo soo dhisay iyo natiijadii kasoo baxday. hadda wax walba waa ay fahamsan yihiin. waad la socotaa ergooyinkii 2016 dhammaantood waa loo yeeray. toddobaadyadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa laga daabulay odayaal. sidee doorasho aysan saameyn ku lahayn al-shabaab loo qaban karaa ayuu yidhi sambalolshe oo waraysi siinayay tv-ga Somali Cable. ugu dambeyntii sambalolshe waxa uu aaminsan yahay in doorashada sida hadda loo wada ay u dhacdo aysan dowladda soo socota ka marnaan doonin in al-shabaab ay saameyn ku yeeshaan. diyaaradda Qatar Airways ayaa duulimaad ka bilaabaysa magaalada muqdisho. shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa ku dhawaaqday in duulimaad toos ah oo muqdisho iyo dooxa ah ay bilaabi doonto 6 Sebtembar 2020 sida ay shaaciyeen mas'uuliyiinta maamulka shirkadda. diyaaradda nooceedu uu yahay Airbus A320 oo isku xirta dooxa muqdisho iyo Djibouti ayay doorteen maamulka shirkadda Qatar Airways. maalmaha toddobaadka ee shirkadda duulimaadyada ay sameeynaysan ayaa kala ah Talaado, Khamiis iyo Axad. waxaa intaasi dheer duulimaadyada kale ee qaaradda Afrika oo ay diyaaraddu ku tagi doonto iyadoo adeegsanaysa hawada Soomaaliya. diyaaradda ayaa kasoo kici timi doonta garoonka Hamad International Airport waxaana ay adeegsan doontaa habka ugu fudud ee isgaarsiinta casriga ah sida dooxa ay saameyn ugu yeelato qaaradda Afrika oo markaa diyaaradeeda ay awood ugu yeelato. Qatar Airways ayaa ka mid ah diyaaradaha isaga kala goosha qaaradaha caalamka. maamulkuna waxa ay diiwaan geliyeen duulimaadyo ka badan 85 duulimaad oo toddobaadle ah halka isku xirka guud uu ka badan yahay 550 qof. saacadaha safarku waxaa maamulka shirkadu ay sheegeen in dooxa iyo muqdisho diyaaraddu ay isaga kala gooshi doonto wixii ka dambeeya 1 duhurnimo waqtiga geeska Afrika maalmaha Talaadada, Khamiista iyo Axadda oo markaasi jadwalna loo sameyn doono. Qatar Airways waxaa tartan dhanka duulimaadka ay la galaysaa diyaarado kala duwan oo soo caga dhigtay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo diyaarado caalami ah oo ay ka mid tahay diyaaradda Turkish Airlines. waxaana xusud mudan in xukuumadda dooxa ay hawada Soomaaliya isticmaalaysay wixii ka dambeeyay markii ay xiriirka u jareen dowlado kale oo Carabeed. Mareykanka ayaa sheegay in 5.3 bilyan oo dollar ay uga baxday howlgalka Soomaaliya uu ka wado isagoo markaa saluubka muujinayana natiijada howlgalkaasi. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay soo celinta ammaanka Soomaaliya kaligeed ku bixisay 5.3 bilyan oo dollar 20 sano ee la soo dhaafay isla markaana aan wax natiijo ah ka soo bixin. kusimaha safiirka Mareykanka ee UN-ka haweeneyda u qaabilshan ayaa hadalkaani ka hor sheegtay golaha ammaanka iyadoo tilmaantay in lacagtaas faraha badan iyo natiijada ka soo baxday howlgalkooda Soomaaliya aysan marnaba isku dhaweyn oo aanan isku meel la dhigi karin. Mareykanku weli waxa uu adeegsanayaa duqeymo isaga oo rajeynaya in uu ku dhifto shakhsiyaadka muhiimka u ah al-shabaab hase yeeshee waxaan shaki la'aan ah in tallaabooyinka military aanan ahayn xalka kaliya ee loogu guuleysan karo kooxda argagixisada ee al-shabaab ayay tiri haweeneydaasi ku-xigeenka u ah safiirka Mareykanka ee UN-ka. Mareykanku waxa uu walaac xooggan ka muujinayaa lacagaha canshuurta ah ee la siiyo al-shabaab isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii ugu dambeeyay oo al-shabaab ay ku qaadeen hotelka Elite waxaana ay sheegeen in dhaqaalahaas weerarka lagu fuliyay ay tahay canshuur shabaabku ay ka qaadeen xarumaha ganacsiga ee Soomaaliya. taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa weli wada tababarka ciidamada Soomaaliya iyo howlgalka duqeymaha dhanka cirka ah sanadkan 2020. taliska Mareykanka ee Afrika waxa uu qaaday 46 weerar oo cirka ah si loo yareeyo khatarta al-shabaab. Soomaaliya waxaa la qiyaasayaa inay ku sugan yihiin in ka badan 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka
kuwaas oo u badan saraakiil hooshoodu ay tahay in ay bixiyaan la talin iyo sidoo kale tababaro ay siinayaan ciidamada Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal waxaa intaa kusoo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Cabaase Channel oo xilligan wararkii ugu waaweynaa oo Soomaaliya iyo caalamka aanu halkan idinku soo gudbinay anigoo Cabaase Xuseen Muuse ayaa idin la socodsiinayay tan iyo inta ku kulmin doona warkan mid ka xiga nabadgelyo.